magaalada Muqdisho waxaa looga dhawaaqay urur dhalinyaro oo loogu magac daray Khayda ururkaasi oo ay ku mideysan yihiin qaar badan oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Nimco Maxamed Bashiir ururkan oo ay ku mideysan yihiin dhalinyarada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee maamulka Qaatumo State ayaa munaasabadii looga dhawaaqay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan xukuumadda maamulka Qaatumo iyo marti sharaf kale oo u badneyd dhalinyaro waxaana munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro iskood isu soo abaabulay ugu horeyn ka hadlay wasiirka ammaanka ee maamulka Qaatumo State Maxamed Ducaale Cabdi oo hadallo dardaaran u jeediyay dhalinyarada ku midooday ururkan Khayda ee maanta lagu dhawaaqay waxaad iska ilaalisaan marka ugu horeysa waxa la yiraahdo waxa Soomaaliya halkaan waa kabiir waa kansar weeye ku dhacay oo aan rajalahay weeye inta la doonay inay baabiiso oo arrinta wax ka qabata waa dhalinyarada iyo wax garadka weeye mustaqbalkii baa tihiin umidii u soo kacay dalka kale intiinaasi haddaad fiicnaadaan gobol walba inta ay inay waa laga helayaa waxa qori aynu wadaa waxa weeye in la helo ummad Soomaaliyeed oo maskaxdoodu furan tahay oo dalkan maanta gumaysi ku jira ee la haysto ka badbaadiya ayaan doonaynaa gudoomiyaha ururkan cusub ee Khayda Axmed Jaamac oo isna gabagabadii munaasabada ka jeediyay khudbad gaaban ayaa sharaxaad ka bixiyay hadafka guud ee dhalinyarada soo hindistay ururkan cusub ee Khayda oo ka mid noqon doona ururada dhalinyarada ee ka dhisan Soomaaliya waxaan ku faraxsanahay in isirka isaga aan ku guuleysto isla markaana ugu khidmeeyo khibradda iyo aqoonta aan u leeyahay hogaaminta dhalinta qaadaysa Soomaaliya waxaa kaliya naabiga ah igala go'aanay biidhnillaahi wa tawfiiqihi in aan dhalinyarada ugu shaqeeyo si kaliya haddii Allah awoodana idmo hore ayaan u sheegay khudbadaydii aan ugu jeediyay waxyaalaha aan hiigsanayno oo aan ka waxaa ka ah midnimada marka ugu horeysa aan dhalinyarada dhalinyarada Soomaaliyeed ururkan dabcan qayb ka yahay waxaan doonaynaa ururkeena inaan ku xidhno ururka dhalinyarada Qaatumo State Soomaaliya ee Khayda aan ku xidhno ururada ay ka mid yihiin ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed oo inta xogta muddooyinkan dambe ayaa waxaa soo badanaya ku dhawaaqista ururada ay ku mideysan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed taasi oo muujinaysa in xilligan ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku baraarugeen dhibaatada dalka ka jirta isla markaasina ay doonayaan inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka iyo waliba dib u soo celinta amniga guud ee uu dalku lahaa Nimco Maxamed Bashiir Somali Channel magaalada Muqdisho.